arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aad iyo aad u fara badan ageelihigu shambuu ahaa gacantayda laba ku jira saddexna way iga gaadmeen gabadhna waan jecelaho inaan guursadaan rabaa. السلام عليكم جايز ولكن ودن بحر ودن له سر الوادة فضلا هدي أتكو عصوبة جنال كيجا سبسكرايب سار هدي أدخل وصارتني ما حسنت ما جاي ودن بحر هل كده يقدر ونسنا موجز تي في مات وحن كهال روا دقيقة أفرو waxay tiri hadii aad dhinto yaali duugin oo hadaa dhimatid yaa ku fiirsanay marka intaad nooshahay lagu jecel yahay hadii aad dhimatid cid ku baahan ma laha waxa tahay macni waxa maqla jiray qof dhinta kabtiisa karoon sidaas tahay hadaba ma xidhi doontaa aan dhageysano deeqa afra idinku mahadsan bismillah magacayga waa deeqa aadan muuse deeqa afra waxaan fiidiyogan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimca taariikhday sheegtay taariikh waa 2017 fiidiyogan bal maad maxaa soo geliyay youtube-ka muhiimadan aadina waxaan dhan hadalkaani waxaan dhan marnabo hadalka muhiimadiisu waxa weeye marka sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala maalintuu iga oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay iga oofsado ee ajashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle igu qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aad iyo aad u fara badan muhiimadda hadalkeenu intaas buu ahaa adigaan ku weydiiyey haddii aad dhimatid meesha lagu geenaayo meesha lagu gelinayo maxaad ka og tahay yaali duugin bal xaggee ku geysanaa ma gurigan ku dhiganaa waxaad maqashay miya cadaabul qabri ayaa jira maqashay ama cadaabul qabriga laga badbaadaya haddii aan lagu duugin miya war qofka markuu dhinto meel alla meesha uu yaalo ayaa lagu cadaabayaa hadduu yahay qof munaafiqa ama qof gaala qof muslim hadduu yahay ama dhul hayaala ama god ha ku jiro lama cadaabayo qof kale ka hadduu yahay qof dambi ilaahay ku haysto war meel aanan waxba lahayn haddii la saaro ilaahay waa cadaabayaa cadaabka alla lama arko godna ma kuma xirna cadaabka godkana waxaa lagu gelinayo waa qurunka iyo wasaqdaada iyo foolxumadaada unbaa godkaas lagu qaranaya maahane maaha in godka qasab maaha godkaas bis in lagu cadaabayo joodarigaada saara lagu cadaabaya hadduu ilaah ugu talagalo dhimashada godkani waa wax la iska dhaxlay waay dhaxal awoow wey waxaa laga soo dhaxlay marka waxaan ku dhihi lahaa waad fududaatay hadalkaas hadal maalaa yacni weeye hadal macnihii laakiinse hadda muxuu usoo galay youtube-ka okay intaasaan ugu gudbayaa hadalkan waxaan tacsi iyo tiiraanyo u dirayaa gabadha walaashiina youtuberada ahayd horena wariye usoo ahayd hodanaale waxaan leeyahay cid walba ee ka dhimatay iyo ilmahay ka dhimatay sawir iimaan allah ha ka siiyo waxaan rajaynayaa booskeeda qof u buuxiyo inuu ilaahay u sahlo ilmahaasi qof walbuu dhimanayaa qof aan dhimasho u qorneen ma dhinto qof walba waqtigiisa ayuu ku dhimanayaa waxay noqotay dhimasho laga naxo oo ama aan la filayn ayay noqotay laakiinse waqtiga ayaa la kulmiyey qadartan way la kulmisay inay halkaas ku dhimato waxaan kaloo halkan uga hambalyanayaa team youtube oo guul soo hoyey waan filayay guushaasi liicaato iyo jamaal jeceelow oo ah rag macnaheed koox walba nin bay ku dhisan tahay markaan arkay jamaal jeceelow iyo liicaato u safan youtube leyda waa iska qanacay waa iska ogaa inay badinayaan laakiinse ma yaraysanaynin ama ma yasiinin
tiktok waxaan is dhahay talow ama nagu carcararaan laakiinse sidan fila ayay noqotay laakiin 2 hal ma filin waxaan filayay 3 iyo 1 3 iyo 4 iyo 1 aan filayay laakiinse 2 hal waan lagu yareeyay marka waxaan idin leeyahay hambalyo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa videoga haddii aad video ka heshay like haddii aad ka helin dislike walakin wadir maxruudin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala